Assalaamu calaykum. Wax isbariddu self-education mid ka mid ah ficilada ugu muhiimsan ee laga rabo qofka wax barta. Wax isbariddu waxay qayb ka noqotay nolosha dad badan, laakiin runtu waxay tahay daawade in badan oo inaga mid ah aysan aqoon qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay wax isbariddu. Wax isbariddu autodidactism waa qofka oo wax isbara isagoo aan cid kale kaashanayn. Daawade, haddii aan ku weydiiyo su'aal ah, weli ma samaysatay qorshe ah inaad wax isbarto ama aad ku dhaqaaqdo ficilka wax isbaridda? Waxaynu joognaa zaman oo cilmiga aad u farabatay ayna fududahay sida lagu barto weliba si free ah. Internetku waa waxa ugu fudud ee uu qofku adeegsan karo si uu ugu barto waxa uu rabo, balse taa beddelkeedu waxaynu internetka u isticmaalnaa daawashada waxyaabo aan faa'iido lahayn ama waxyaabo aan nolosheena waxba ku soo kordhinayn. Ma ogtahay daawade in wax isbariddu lagu tiriyo inay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo qofka, ayna waajib tahay inuu ku dhaqaaqo? Waxaana lagu tiriyaa wax isbariddu inay asal u tahay guusha. Waxaa jira shirkado aad u waaweyn kuwaas oo gebi ahaanba iska joojiyey in qofka u shaqaynaya ay ku doortaan shahaadada uu wato nooca ay tahay. Taa beddelkeedu waxay bilaabeen in qofka ay ku doortaan maxaad taqaanaa iyo maxaad qaban kartaa. Waana wax asal u ah wax isbariddu iyo xirfado kala duwan ee uu qofku isbaray. Muuqaalkan hadda horteena ka muuqda waa muuqaal la soo gudbiyey 7 sano ka hor, waxaana ka dhex muuqda wiil markaas jiray da'da 15 sano. Waa 2014kii. Wiilkan ayaa wuxuu muuqaalkan ku soo bandhigayaa waxyaabihii uu isaga keligii isbaray, wuxuuna leeyahay, waxaan jiray 10 sano markii aan bilaabayay inaan isbaro luuqadaha kombiyuutarka, koodhinka ama borogaraaminta. Borograamkii ugu horreeyay ee aan sameeyo wuxuu ahaa mid aan ka badnayn 10 sadar. Hamigayguna wuxuu ahaa inaan website sameeyo. Intaa kadib, buu yidhi, waxaan dul tagay kombiyuutarkayga anigoo isticmaalaya internetka, waxaana bilaabay inaan barto luuqadda PHP oo ah luuqad lagu sameeyo website-yada iyo application-nada. Waxaan sameeyey, buu yidhi, application sida Twitter-ka camal ah, laakiin wax yar ka yar beddelan. Waxaana helay dhowr qof oo isticmaasha application-kii aan sameeyey, taas oo igu dhiirigelisay inaan sii wado wax isbaridda. Wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid ah ayaan aabbahay ka qaatay lacag $200, waxaana ku soo iibsaday saacad lagu xidhiidhiyo moobilka. Waana saacad kaliya ku shaqayn karta hal application markiiba. Aabbahay ayaa i weydiiyey saacaddu waxa ay qabato, waana u sheegay. Markaas ayuu igu xanaaqay, wuxuuna igu yidhi, lacag $200 ayaad iiga khasaarisay saacad xun oo markiiba hal application ku shaqayn karta. Anigoo murugaysan ayaan aabbahay ka tagay. Waxaan bilaabay in aan saacadda ka dhigo mid ku shaqayn karta application-no badan, waxaana ku qasbanaaday inaan barto luuqad kale oo lagu magacaabo C. Waana ku guulaystay, buu yidhi, inaan saacadda ka dhigo mid ay application-no badan ku shaqayn karaan. Wiilkan ayaa wuxuu yidhi, saacad ayaa igu qasabtay inaan barto luuqad aad iyo aad muhiim u ah, waana luuqadda C. Waa luuqad programming ah loona adeegsado samaynta application-nada sida software-ka caanka ah ee Adobe Premiere Pro. Xitaa application-kan ee aan hadda ka dhex hadlayo ee YouTube waxaa la sameeyey iyadoo la adeegsanayo luuqadda C. Ryan Lee, oo ah wiilkan horteena ka muuqda, ayaa wuxuu yidhi, aniga ayaa bilaabay inaan wax isbaro halkii ay waalidkayga igu dhihi lahaayeen wariyaa ordo iskuulka aad oo wax soo baro. Balse taa beddelkeedu, buu yidhi, aniga ayaa u istaagay in aan nolosheeda wax baro oo aan ka faa'iidaysto waqtiyada aan firaaqada leeyahay.
Naga ka Soomaali ahaan, wax isbariddu waa ay nagu yar tahay, waana sababta keenta in dhallinyaradeena ka baxa dugsiyada sare ee waddankeena ay marka ay tagaan qurbaha ay ugu jahwareeraan waxbarashada halkaas ka jirto. Waxaa jirta oraah caan ah oo odhanaysa nidaamka caadiga ah ee waxbarashada waxay kaa dhigaysaa qof shaqaysta, balse wax isbariddu waxay kaa dhigaysaa qof hantiile ah iyo qof ay noloshiisu guul gaartay. Waxaa mar walba dhegaheena ku soo dhaco in ay waxbarashadu tahay furaha guusha, laakiin waxbarasho noocee ah